waa maxay cuntooyinka u wanaagsan ee muuqaalka qofka? Inta aynan u gudagelin barnaamijka, fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato channelka, fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saarto channelka lana wadaagto asxaabtaada. waxaa jira cuntooyin kala duwan oo la xaqiijiyay in ay muuqaalka qofka u wanaagsan yihiin. waxay isugu jiraan khudaar, fruits iyo looska noocyadiisa kala duwan. cuntooyinkan waxaa ka mid ah yaanyada, gaar ahaan midda cagaaran oo jirka ka ilaalisa in quruxda wax u dhinto. waxay u roon tahay dadka ay wejigooda quruxda gubto. bocorka waxaa la sheegaa inuu ka mid yahay cuntooyinka maqaarka sifeeya, gaar ahaan haddii sida cabitaanka loo shiido. wejigana waa la marsan karaa, waxa uu jirka ka saaraa wasaqda. bataati macaanka waxa uu ka hortagaa gaduudka wejiga ku yimaada. looska guud ahaan waxaa ku jirta saliid, waxa uu maqaarka u sahlaa in uu sunta ka saaro jirka. ukunta waxaa ku jirta borotiin u roon xoojinta difaaca haragga. cabidda biyaha waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo maqaarku u baahan yahay, wuuna jilciyaa, wuxuuna ka ilaaliyaa jeexjeexa iyo qalalka maqaarka. intaas iyo kuwo kaleba waa cuntooyinka aadka looga helo una wanaagsan quruxda iyo bilicda qofka. muuqaalkana maanta intaas ayuu ku egyahay. sidaas iyo ammaano Allah.